नमस्कार। कहते हैं कि इस कलयुग में अच्छी गर्लफ्रेंड मिलना धूप में तारे ढूंढने के बराबर है, लेकिन इस लड़की ने श्रेष्ठ गर्लफ्रेंड का खिताब अपने नाम कर लिया है। बॉयफ्रेंड की पल पल की खबर रखना, उसको पबजी खेलने देना, उसे अपने दोस्तों से मिलने की हर बार अनुमति देना, उसे अपनी सहेलियों से मिलवाते रहना, उसे बार बार कॉल करके नहीं पकाना और भरपूर स्पेस देना, ये इनकी खासियत है। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, वरना ना हो। xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed waxay ogsoon yihiin dadaalkii dheeraa loo soo maray dhismaha hay'adaha siyaasadeed ee dalka intii uu ku jiray kumeel gaarka ka soo bilaabata sanadkii 2000 iyadoo lagu soo dooran jiray shantii baarlamaan ee la soo dhaafay xanaan doorasho dadban oo aysan shacabka Soomaaliyeed fursad u helin inay codka si toos ah u dhiibtaan oo dadka baarlamaanka ku matala ay toos u dooran madashii wada tashiga qaranka ee 2016 waxaa go'aan lagu gaaray inaan dib loogu noqon doonin xanaan doorasho dadban madaxweynaha baarlamaanka tobnaad waxaa juhdi iyo dhaqaale fara badan la geliyay sidii doorashada dalka looga saari lahaa xanaan dadban oo ay ka mid ahayd wada tashiyadii xanaanka doorasho ee dalku qaadanayo oo lagu soo gabagabeeyay heshiiskii doorashooyinka ee golaha amniga qaranka 6 Juun 2018 magaalada Baydhabo. Guddoonka golaha shacabka wuxuu si joogto ah ugu dalban jiray xukuumaddii hore inay soo gudbiso hindise sharci doorashooyinka dalka. Nasiib wanaag xukuumaddu waxay golaha shacabka u soo gudbisay hindise sharci oo ku salaysan xanaan qof iyo cod taariikhdu markay ahayd 14 bishii shanaad 2019 iyadoo golaha shacabka u saaray guddi farsamo oo ka kooban 15 xildhibaan taariikhdu markay ahayd 20 bishii toddobaad 2019 guddigu wuxuu safarro la tashi ku tagay dhammaan dowlad goboleedyada dalka wuxuu kaloo la tashi ka sameeyay gobolka Banaadir iyadoo wada tashiga ballaaran lagala yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan. sharciga doorashooyinka heer federaal wuxuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyay kalfadhigii 6aad kulankiisii 23aad 19 Febraayo 2020 iyadoo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhaqan geliyay 20 Febraayo 2020 guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu golaha shacabka soo hordhigay 27 Juun 2020 warbixin ku saabsan diyaargarowga doorashada ka horjeediyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyadoo guddoomiyaha guddiga uu cadeeyay in doorashada ay qabsoomi karto 13 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa bisha Luulyo 2020 kuna eg bisha Agoost 2021 haddii la isticmaalo nooca diiwaangelinta biometriga ah iyadoo xulitaanka labaad ahaa diiwaangelinta mid isla maalintaasi ah ayadoo doorashada qaban karaan muddo 9 bilood oo ku ekaan lahayd bishii Maars 2021 hasi yeeshee 11 Luulyo 2020 waxaa caasimadda Galmudug ee Samareeb ka furmay shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada dalka halkaas oo ay ka bilaabatay in dib loo soo nooleeyo xanaankii doorashada dadban iyadoo aakhirkii 17 September 2020 heshiis ku gaaray
madaxda fulinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir hanaan doorasho dadban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu baarlamaanka Soomaaliya u soo gudbiyay codsi ku saabsan ansixinta heshiiska jiheynta doorashooyinka dadban annagoo ogsoon xaaladda dalku ku jiro iyo annagoo u turayna shacabka Soomaaliyeed isla markaasna qadarinayna heshiiskii dhex maray hay'adaha fulinta ayuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku ansixiyay cod aqlabiyad ah haddaba qorshaha fulinta doorashada dadban ee heshiiska 17 September wuxuu ku caddaa jadwalka doorashada inay bilaabato 1 November 2020 ayna dhamaato 8 February 2021 toddoba bilood ayaa madaxdii heshiiska saxiixday ay ku mashquulsanayeen sidii loo fulin lahaa waxaase nasiib darro noqotay in muddo intaasi la eg laga khasaariyo ummadda Soomaaliyeed xaaladda shacabka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin maanta ma saamaxayso in lagu sii jiro marxaladan shakiga badan abuurtay ee dhinaca doorashooyinka dalka hay'adaha dowladda laguma sii hayn karo xaalad hubaal la'aan ah oo qalalaase gelin karta dalka wuxuu shacabka Soomaaliyeed naga sugayaa inaan ka jawaabno xalna u keeno xaaladan cakiran golaha shacabka wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan oo dhan waxaa mas'uuliyadii ka saaran tahay inuu mar walba u taagnaado samata bixinta iyo matalaadda shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya go'aanka aad qaadataan wuxuu saameyn ku leeyahay dalka oo dhan waana inaad mar walba maanka ku haysaan waxaa danta ummadda Soomaaliyeed ku jirto xildhibaanada sharafta leh soo jeedinta mooshinka ay xildhibaanada soo jeediyeen oo ay ku soo jeediyeen sharcigan gaarka ah ee jiheynta doorashooyinka heer federaal inta ogol codaynaysa gacantaaga jiya yaa diiday aan ku hormarnay yaa diiday yaa ka aamusay qala soo gudbiyo codaynta sharciga gaarka ah jiheynta doorashooyinka heer federaal oo ay xildhibaanadu mooshin ku soo jeediyeen waxaa ka aamusay hal xildhibaan waxaa diiday 3 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 149 sidaas ayuu ansax ku yahay xildhibaanada aad iyo aad ay u mahadsan yihiin